The West is watching June 24. What are they waiting for? How will Erdogan collapse? Are we ready to give the appropriate lesson to them? ay sababta reer galbeedku u doonayaan inay burburiyaan Turkiga ka hor inta aan la gaarin sanada 2023 maxay tahay sababta inta badan madaxweyne Erdogan uu uga hadlo sanada 2023 muxuu Jarmalku cabsi iyo walwal badan uga qabaa sanada 2023 First president of the First Turkish Republic, Mustafa Kemal, during the 1920s, is now granted dictatorial powers and is himself christened Ataturk, meaning father of the Turk. Kemal Atatürk oo ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee Turkiga kadib dhicitaankii khilaafadii Cusmaaniyada oo ay reer Yurub isaga u adeegsadeen burburinteeda ayaa waxaa laga saxiixay heshiis loogu magac daray Lausanne 1923 heshiiskaasi waxa uu soconayay 100 sano waxaana ay ku beegan tahay dhicitaanka heshiiskaasi sanada 2023 Ingiriiska oo wakiil uga ahaa xulafadiisa ku guuleystay dagaalkii koowaad ee dunida ayaa dejiyay heshiiskan oo lala galay Kemal Atatürk qodobada heshiiska laga xusi karo waxaa ka mid ahaa in meesha laga saaro khilaafada Cusmaaniyada suldaanka iyo qoyskiisa Turkiga laga masaafuriyo in la soo wareejiyo guud ahaan hantida khilaafada iyo suldaanka in lagu dhawaaqo in dawladda Turkigu ay tahay dawlad cilmaani ah oo aan diin shaqo ku lahayn inay mamnuuc tahay in Turkigu shidaal la soo baxo in uu soo degsado kaliya ayaa loo ogol yahay in gacanka Bosfor noqdo marin caalami ah oo aanu Turkigu wax lacag ka qaadan doomaha mara gacanka Bosfor waxa uu isku xiraa badda madow iyo badda marmara ilaa badda dhexe waa gacan u dhigma gacanka Suez waxa kale oo loo yaqaan gacanka Istanbul wuxuuna magaalada Istanbul u qaybiyaa laba dacal dacalka Yurub iyo dacalka Asia heshiiskan waxa uu ku egyahay sanada 2023 markaas oo 100 sano jirsan doono hadii baydmo mutual comfort that it has ended successfully not only for waa sababta uu Erdogan ugu celceliyo in 2023 uu dhalan doono Turkiga cusub oo uu Turkigu la soo bixi doono shidaalkiisa oo la sameyn doono gacan biyood cusub oo isku xiri doona badda madow iyo badda marmara iyadoo oo la bilaabi doono in lacag laga qaado doomaha mari doona marin biyoodkan aad muhiimka u ah taas oo Turkiga uu ka soo gali doono dhaqaale aad u tiro badan Turkiguna markaas uu noqon doono dawlad ka awood badan Turkiga maanta wadda naacimka koobaad ay dawladda Turkiga haysato waxa weeyaan inay namuudaj noqoto waxay ku leedahay anigu model baan noqonaya modelka noqonaysa muxuu yahay islaamka maanta sidee dadka loo bari oo dadka loogu fududeyni oo dawladnimada loola noolaani oo isku dhac la iska ilaalini ana namuudaja dadka oo taas bay ka heleen marka meel wax isha lagu wada hayay noqotay oo dadka oo dhan ay raadaan fikradda Turkiga waa la qaadan karaa waa quwad naacima waa fikradda Turkiga noqotay power soft power in Turkey The West is watching June 24. What are they waiting for? How will Erdogan collapse? Are we ready to give the appropriate lesson to them?